السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسور دوادا موضوعنا مانتا دياد كنال بكو عصوبتاي فضلا سوبسكرايب نوصر كنو صوبير كنا بيلوقا أصحابتو كحرن جانا كميقو بلشدا فكمانا جنباليلكا سي برنامجكو مركو أصور دعابا آد مركب أولو سعودي كوران ganacsiga qorsheynayay inuu dilo ganacsada kale balse dilaaga qolooyin kale u sii wakiishay maxaa dhacay talow wacdaraha adduunka ganacsada u dhashay dalka Shiinaha ayaa kireystay nin dilaa ah si uu u dilo ganacsada kale oo loolan ganacsi kala dhaxeeyay si labadoodaba ganacsi aynan isu dhaafin balse dilaagii dilayay waxa loo balan qaaday lacag gaaraysa $280,000 haddii hawsha dilka uu fuliyo ama se uu ku guuleysto dilaaga ayaa sii kireystay dilaa kale isagoo la dawaqsan lacagtan aad ka faraha badan dilaaga kale isna sii kireystay dilaa kale dilaagii shanaad ayaa kiishifay arrinta maadaama shirqoolka xadhka badani is soo galgaleen ayadii ayaa markay iswareysteen waxay la yaabeen lacagtan mishinka loo fulinayo oo adkaatay markii dambe waxay booliska u sheegeen inay ganacsadaha dilayaan markiiba booliska ayaa soo qabtay maxkamadda ayaan la soo taagay dhammaantood waxaana lagu xukumay xukumo kala duwan mahmaha Soomaalidu waa cajiib Soomaali been waa sheegta balse been kuma mahmahdo waayo wax badso wax beel bedasha ugu dambeyntii ganacsadii jeelka ayuu saaxiib la noqday ganacsadii kalena bartii ayuu loolankiisii ganacsi ka sii waday intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaal ee fi amaanillah mawduuceena maanta saaxiibayaal waxaan idinku bishaareynaa inaanu bartan idin soo golin doono barnaamijyo taxana ah oo toddobaadkiiba laba barnaamij ama laba mawduuc oo macquul ah idin soo gelin doono fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah